waxa kamida ciyaal baa islaynaya dabeetana islaam waliba iyo ina waliba dhinaceeda ayay ka soo raacaysaa taasina mid haboon ma hawlalayeen ayaga aqli isuma geynin waxa haboon in la heshiisiyo in la tilmaamay inay walaaliyihiin inaanay waligood kala tagaynin inay jaar yihiin in loo cadeeyo wixii dhibaato haddana dhexla inta la gasho la wada xallisho ayaa haboon laakiin caruurtii bil aqliga in dadkii weynaa bil aqli noqdo oo ayaguna ay soo raacaan oo soo daba galaan waa runtii midaan haboonayn taana aad iyo laxaad in looga digtoonaado ayaa haboon marka walaalayaal waxa weeye jaarka in dibtiisa qofku ka dambeeyo wax aliyaaliyo wixii uu heli karaa uu hidin karana uu hidiyo wixii dhibe ka soo gaadho jaarkiisa ka timaadana runtii inuu ka dulqaato ayaa haboon way khayr fara badan ayaa uu ka helaya qodobkii walaalayaal saddexaad ee ahaa runtii xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay ee ahaa jaarka in martida la maamuuso waqtigu waxaad moodaa inaanu inoo saamaxaynin waxaanu runtii kelmad yar oo aan ku sii tuuri lahaan waxa weeye in runtii wixii marti ah inoo timaadana runtii aad iyo laxaad loo soo dhaweeyo waji furan lagu qaabilo qalbi dabacsan lagu qaabilo hadal wanaagsan lagu qaabilo xaqa uu leeyahay isagana la mariyo ayaa haboon siiba runtii dumarka waxa halka ka sii khuseeya oo aan runtii oran lahayd marti dheera cidii markaa ruuxa dumara ehelka ninka wixii uga yimaada inay aad iyo laxaad u soo dhaweyso ay qadariso siiba waalidkii iyo markaa dumarka kale ee markaa xagga ninka ka soo jeeda waa laga maarmaan waxa kale oo runtii laga maarmaan dumarka u sii haboon ubadka loo keeno ama dadka markaa gurigooda kula nool ee aan ubadkooda ahayn inay aad iyo laxaad ugu soo falaan baa wanaagsan inay ilmahooda ka hormariyaan baa wanaagsan waxa la yaaliyo wax kastoo ilmahooda siinayaan ama ay ku tarayaan inay kana ku taraan ay uga badiyaan ayaa runtii wanaagsan halka waxa ka dhasha runtii xibdi fara badan waxaanay tustaawun duwanaaga ruuxa dumara iyo xumaanteedu may tusisaa in badan baa runtii macruuf oo sheekada la yaqaana ruuxa dumar haday ubadka loo keenay iyo dadka loo keenay ubadkeeda kala ma digto waxay tusinaysaa duwanaageeda iyo qiimaheeda hadii ay se kala fadisho oo ay kuwana meel yar wax ugu tuurto kuweedana ay gudaha soo gashato ama ba xilli kasta kuweeda wax siinaysa wax kasta soo iibinaysa kuweeda ku kala aanay ku darin hadii awood u leedahay runtii waxay tusinaysaa xumaanteeda taana runtii inta ayaan kaga soo gaabinaya waxaan runtii qodob yar oo kale ayaana iyadana mowduuca ka yar baxsan runtii iyadana idinku baraarujinaya xagga dumarka ku yar badan waxa runtii jirta oo qaabo fara badan oo aan oran karo runtii waa tuuga casriyaysan ayaa imika soo baxday oo dumarka runtii lala dhex qaadaya ayaa jira dhowr waji ayay leedahay midii ayadu deewaatan hay'adaha iyo lacagaha dulsaar kale iyo waxa soo taayada muddo badan baa laga hadlayo ayada hadalkeeda u banbixi maayo mid kale ayaa jirtay oo dad xarfaanahoo dabadaha inooga yimi oo dadka $50 ka ururin jiray dabeetana oran jiray afar qof baad keenaysaa kambaniyaan idinku xirayna waxba ka iibinaysaa afarta markaad keento kontonkaagi qaado halaa ka bax yaani wax soconayo una kontonka qof iyo dadka dhexdooda laga bayc mustareynayo ayay ahayd runtii taamarkii laga hadlay waa iska daba yaraatay waxa jira hadaba runtii mashruuc imika aad iyo laxad magaalada uga socda aan filayana inuu xagga gacan libaaxiyan iyo Hargeysa uu ka soo bilaabmay aad moodo magaalada runtii imika inuu ku dhamaanayo waana dumarka dhexdiisa waxa weeye dumar lacag baan ururinayna lagu shaqeynayo 700 baa laga qaadaya ama $100 baa laga qaadaya ama $500 baa laga qaadaya waxa la leeyahay 700 tii keenta bil walba 100 bay qaadanaysaa qofkii $100 keena 150 faa'iido ayuu qaadanaya lacagtiisa goortu u baahdana waa uu qaadanaya dadka noocaasa qof qura oo sheegaya qof gaal lacagta qaadaya arkay ma jiro heshiis la galaya ma jiro qoraal la kala qoranaya ma jiro ragna shaqo kuma leh waxa la waa dumarka dhexdeeda taas macnaheedu waxay tahay marka ay nooca tahay inaad qofkii arkaynin wuxuu ka shaqeynaya aanad arkaynin qoraal iyo damaanad lacagtaadu aanay lahayn seed ku dhiibaysaa waa sidee midda labaad qaab kan ay u shaqeynayaan ay faa'iido u bixinayaan waa qaab khilaafsan adduunyada qaabka looga shaqeeyaba bangiyalka ribada bixiya adduunku ee dulsaarka bixiya boqolkiiba 5 iyo bay bixiyaan boqolkiiba 1 iyo boqolkiiba 4 boqolkiiba 2 iyo sanadkii bixiyaan
laakiin boqolkiiba 20 ama boqolkiiba 14 in la bixiyo wax khasaaro ana ma arkaysid la yiraahdaa waa waxaynan garanaynin meel alla meel ku saleedahay kaliya markaanu ka fikiray arrinka waxa inoogu muuqday in dadkan lacagtooda la isugu celinayo deewaatan Soomaalida ay waxba iska hubsanaynin siiba dumarka aan waxba iska hubsanaynin in waxaan la isugu celinayo lacagta kuwan dambe laga qaadayo kuwii hore la siisinayo marka ay dabatana saa loo cawarana in hadhow la waay doono ama meel alla meel loo raacaya aan jirin cid alla cid loo raacaya ma jirto marka waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo xadarka looga feejay islaamku wuxuu yaqaanaa qof aad garanayso inaad lacag u dhiibto inuu lacagta ku shaqeeyo khasaariye faa'iido wixii ka soo baxana kala qaybsataan in laba xoolayo waa isku darsataan ku shiraakowdaana uu yaqaana oo midkii ku shaqeeya ama qof kale u dhiibataan laakiin lacagta aan arkin in xashiishad laga bay'am mushtariinayo in khamri laga bay'am mushtariin boor baad u haysaa lacagtaadii mar hadaan wax Allah wax laga shaqeynay ogeyn mar hadaan qofka loo dhiibaya aan arkaynin taana waxaan leeyahay dumarka ku jira hay iskaga baxaan lacagtoodina had doontaan wixii hore ogaan la'aan iyagoon ogeyn ka dhacayna afallahu amma salaf inta kalena waxaan oran lahaa laga digtoonaado hal iskaarsiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi jazakallahu khayral jazaa an sheekh ilaahay ka baal mariyo muhaadarada qiimaha badan laba su'aalood baa insha Allah sheekhan weydiin doonaa hadii ilaahay yiraahdo sheekh inagoo mahadnaqayna waxaynu weydiinaynaa su'aal waxay tahay su'aasha la soo qoray gabadhu waxay leedahay inay yar oo caruurteeda la ilmaabtiya iyo aan la walaalahayn laakiin inaabtigooda ayaan soo koriyay isagoo yar imikana waa qaan gaaray waana isla yar cadilanahay xaalku sidoo noqonaya niyar buuha oo aan runtii soo xanaaneeyay qaan gaadhna waa gaaray imika miyaan ka xijaabanaya iyadoo dib badan iga haysato su'aashu waa taataas insha Allah ta'ala الحمد لله رب العالمين runtii waa la yaqaanaa de ragga intii maxaarima ee ruuxa dumar aanay ka xijaabanaynin marka hadii aanay ilmaha naaska jaqsiinin ruuxa dumar intii uu yaraayo laba jir ka yaraa hadii naaska jaqsiisay oo caruurteeda uu naaska la jaqayn ka soo Soomaaliyeed ka aqoonin waa wax runtii de maxaarimteedu ka mid noqonaya hadii kale maxaarimteeda ka mid maaha ilmahaasi ee waa inay ka xijaabataa sida ragga kale ajarimta bay ugu xijaabanayso jazakallahu khayran an su'aasha kale waxay tahay waa su'aal runtii iyaduna markaasi waxay sheegaysaa nin muslim ayaan dilay nin gaal ah waxa uu ku dilayna ma yahayn diin iyo ilaahay dartiisa waxay arin dhaqaale ilaahay ma u qabsanaya qiyaamaha ninka uu dilay ee uu ku dilay dhaqaalaha waliba ninkana uu gaal ahaa runtii gaaladu waa dhowr qaybood bay u qaybsantaa gaalka runtii furan in la dilo ee qofka ay u banantay waa gaalka xarbiga ee aynu dagaalamayno dagaalku inaga dhaxeeyo gaalka muahadka ah runtii ama muddada aynu leenahay ama mustaamanka ah ee nala jooga ama yaani ogolaansho aynu inagu ogolaanay ku soo gala isaga ka dhaqaale iyo dhaqaale darro midnaba in lagu dilo ama lagu waxyeeleeyo ma banaana waa mahadsan sheekhu waxaan la jazakallahu khayran idinkuna aad iyo aad baa u mahadsantiin